Star FM deegaankaada degmada aad ku nooshahay ama guud ahaan dalka iyo dibadda. muqdisho 97.0 megahertz beledweyne 89.0 megahertz Dobley 89.5 megahertz balad xaawo iyo Mandera 92.3 megahertz faydhabo 89.8 megahertz jowhar 89.9 megahertz gurceel iyo dhuusamareeb 89.5 megahertz luuq 99.9 megahertz kismaayo 89.5 megahertz gaalkacyo 87.7 megahertz cadaado 87.7 megahertz Garbahari 89.0 megahertz Star FM saaxiibka bulshada waxay saacad kasta iyo second walba ay dadaal ku bixinaysaa sidii ay ku siin lahayd wararka ugu saameynta badan ee ka dhaca deegaankaaga inagoo kaashanayna wakiiladeena ku sugan deegaan walba iyo ila wareedyadeena sida joogtada ah inooga caawiya helidda warar saxan oo sugan haddaba adiguna nala wadaag dhacdooyinka aad goobjooga u tahay ee ka dhacay deegaankaaga si aan ugu soo bandhigno dhagaystayaasheena inaga soo wac ama fariin inoogu soo dir nambarka 617 ama 85 Star FM wehelka bulshada si aad u hesho macluumaad ku saabsan deegaankaaga gobolkaaga iyo guud ahaan geyiga geyso mawjadda Star FM oo la soco warar hufan barnaamijyo tayaysan iyo xogo ku xiisa geliya Star FM idaacadaada bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum habeen wanaagsan dhagaystayaalkan wararaadii eesaar kusoo dhawaada qodobada wararkan caawa idin diyaarinay waxaana ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo aqbalay raaligelintii uu dhawaan bixiyay madaxweyne Farmaajo taliska ciidamada booliska degmada Balad Xaabo oo sheegay in burbur xoogan uu ka muuqdo saldhigga booliska degmadaas maamul goboleedka Hirshabelle oo sheegay in dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Jowhar ee Al-Shabaab iyo ciidamada Hirshabelle u dhaxeeyay kaga dhaawacmay hal askari xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidamada booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir khasaare kala duwan oo ka dhashay dabeelihii ku dhuftay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dowladda Mareykanka oo sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay weerar dhanka cirka ah iyo booliska dalka Jarmalka oo xabsiga u taxaabay koox qorsheynaysa in ay weerar fuliyaan markale habeen wanaagsan waa habeen Arbacada Talaada ayaa sii bixayso taariikhdu ay tilmaamayso 18 Febraayo sanada 2020 waxay ayeen qodobadii ugu door corona intii aad maqasheen ku soo dhawaada iyaga oo faahfaahsan Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa halkan idinkaga tabinaya Maxamed Abuukar Cabdi Xasan ayaa farsamada ku jira aan ku bilownay sida hordhaca warkaba aad ku dhageysateen madaxweynaha Soomaaliland ayaa aqbalay raaligelintii uu dhawaan bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 13 bishan Khamiistii aynu ka soo gudubnay Maxamed Cabduqaadir Silfa ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta hadal ka jeediyay khudbadiisa sanadlaha ah golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ay qayb ka ahaayeen kulankii madaxweyne Farmaajo dhexmaray raaligelintii madaxweynuhu uu bixiyay iyo socdaalka madaxweynaha Soomaaliya ee la shaaciyay inuu ku tagi doono magaalada Hargeysa Muuse Biixi oo baarlamaanka Soomaaliland u sharaxaya kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa kulan kadis ah oo aan la sii qorsheyn sidoo kale waxa uu tilmaanay in kulankaasi uu dhexmaray isaga iyo madaxweyne Farmaajo uu ahaa mid
ku yimid si degdeg ah oo isugu yeeray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed inkastoo uusan faahfaahin ka bixin waxyaabihii dhex maray marka laga reebo in uu kaga hadlay in kulankaasi uu ahaa mid diiradda lagu saaray wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland sidii loo ambaqaadi lahaa. madaxweynaha Somaliland oo ka hadlaya raaligelintii dhawaan uu madaxweyne Farmaajo u diray walaalaha Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan garowshiyaha madaxweyne Farmaajo oo ka bixiyay xasuuqii lagu geystay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqanaa gobolada waqooyi ee Soomaaliya xilligii dowladda kacaanka. waxa uu tilmaanay in raaligelintaasi uu arko tilaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga. waxa uu sidoo kale meesha ka saaray in dhankooda ay raaligelin bixiyaan maadaama uu qayb ka ahaa jamhaddii SNM ee xilligaa dagaalamaysay. madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii xasankeedii lagu diray ninkii sarkaalka ahaa ina cabi. raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay xasan sheekh marbuu si dulmara u yidhi waan ka xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkadsigu ahayd. marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya. mar uu soo hadal qaaday booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan la shaaciyay inuu ku tagi doono magaalada Hargeysa ayaa Muuse Bixi hadalkaasi waxa uu ku tilmaanay waxba kaba jiraan in Farmaajo uu tagayo magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Somaliland isagoo carabka ku dhuftay in aysan weligeed dhici doonin balse go'aankooda kaga aadan ay dib warbaahinta ugu soo bandhigi doonaan. hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raaligelin baa bixinaya oo waxa soo dambiya qiranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadlay doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa. wajiyada siyaasadda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa u muuqda mid isbedel u horseedi kara ka gadaal kulankii 9 bishaan magaalada Addis Ababa ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi iyadoona arrinkaasi uu wadada u xaari karo wada hadal 4 sano kadib xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay la furto Somaliland. aad buu u mahadsan yahay Silfa. taliska ciidamada booliska degmada Balad Xabo ayaa sheegay in burbur xoogan uu ka muuqdo xarunta saldhigga booliska degmadaas. Cabdinuur Shibleeye Cabdinuur Shikir ayaa warkan Balad Xabo ka soo diray. saldhigga degmada Balad Xabo ee gobolka Gado oo mudooyinka ugu dambeeyay la wareegeen ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa ka socda shaqooyinka caadiga ah ee bulshada loo qabanayay. waxaana saldhigga degmada ka muuqday burbur dhan waliba sida qolalka maxbuusta iyo xafiisyada ay ku shaqeyn lahaayeen ciidamada booliska Soomaaliya kuwaasi oo wali aan helin wax dib u dayactir ah ku sameeyo tan burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo taliska booliska degmada Balad Xabo ee gobolka Gado ay ka warbixiyeen shaqooyinka ka socdo saldhigga iyo baahiyaha ka jira saldhigga iyo xaaladaha adag ay ku shaqeynayaan. waxa arrinka ka wareysanay taliyaha saldhigga degmada Balad Xabo ee gobolka Gado Xuseen Aadan Dhaqane. kuwa hadda hay'adaha wax looga raadsanayay oo dib ugu darsamay sidaas darteed waxa weeye caqabado badan bay soo martay dhib badan bay soo martay xaalad badan bay soo martay saaka mahad ilaahay waxaa ah haddii dawladdii ay soo gaartay oo waxaan ka qudbaynayna iyo waxaan u qudbaynayna iyo waxa TV-ga qaranka loo wado la geyn rababa ay tahay dawladdii dalka lahayd. hadda askartan oo askartii qaranka Soomaaliyeed ah oo boolis ah waxay ka shaqaynayso waa degmadii Balad Xabo. waxaa weeye oo intaa dheer waxaan ilaahay ka baryaynaa wixii hadda ka dambeeya badan bay soo martay dhib kala ciil uma qabto ilaahay inuu nabadgelyo ku soo dabaalo yaan ka baryaynaa.
waxaa weeye caqabadihii ay soo martay hadda kuwa aan ka sheekayn karna ma aha wax fara badan bay ahayd annaguna waa iska dhex joognay oo annagoo dhib walba ku qabno nooc walba soo marnay guuleeyey waa ku guulaysan dowladdina waa noo timid wixii hadda ka dambeeya in loo jaan qaada hekel dowladnimo iyo waxqabad dowladnimo yaan rabnaa haddee dowladda waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah dhulkaanu waxqabad loogu sameeyo oo boliiska ku soo bahdilnaay nolol iyo dhulkiioo loo dhisa dhintay xabsiyada leh guryaha wada dayacmoo dhintay leh oo waxqabad degdeg ah ay la soo gaarta yaan ilaahayna ka baryaynaa dowladdana ciidamada booliska oo si buuxda gacanta ugu haayo saldhigyada degmooyinka gobolka Gado ayaa waxaa ah baahiyada haysta ciidamada booliska qaybta gobolka Gado ayaa waxaa ka mid ah qiimeyn kadib aysan qaadanin qaar ka mid ah ciidanka booliska mushaaraadkii bishii January gabagabadii waxa ay bogaadiyeen ciidanka booliska qaybta gobolka Gado shaqooyinka isku dubridka aad ku wanaagsan taliyaha booliska qaybta gobolka Gado hawlo shaqo u jooga caasimadda dalka ee magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho gaashaale dhexe aadan siyaad ayaa la wadaagay warbaahinta Cabdinuur Shableeye Xasan Cabdinuur Shakir degmada balad xaabo ee gobolka Gado maamul goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay in dagaalkii xalay u dhaxeeyay al-shabaab iyo ciidamada Hirshabelle ee ka dhacay magaalada Jowhar uu kaga dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada Hirshabelle Fawzi Xasan Axmed ayaa faafahinta warkan soo koobaysa wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab kaas oo xalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi wasiirka wasaaradda amniga Maxamed Cabdiraxmaan Qayre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay xaafadda Horseed ee magaaladaasi sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in dagaalka uu yimid kadib markii kooxo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ku taala halkaasi taas oo uu xusay in lagala socda dhaqdhaqaaqa dadka soo galaya Jowhar Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ciidanka amniga ay ka hortageen weerarka isla markaana uu uga dhaawacmay kaliya hal askari oo ka tirsan ciidamada al-shabaab ayaa isku dayay in ay ammaanka qalqalgalshaan waxayna rasaas ku turtuureen fariisan u ah ciidanka ammaanka Hirshabelle oo banaanka magaalada ah taas oo lagu kontaroolo dhaqdhaqaaqa dadka soo galo magaalada iyo dadka ka baxa kooxihii soo rabshadeenaya fariisamaheena ciidanka amniga ayaa ku daba jiro sidii gacanta looga soo dhigi lahaa ayuu yiri wasiirka amniga ee maamulka Hirshabelle dhinaca kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo la xiriira dagaalkaas iyo weerarka ka horeeyay intaba xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidamada booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kadib digreeto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Xijaar Ali Maxamed Ali ayaa faafahinaya warkan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa xilka ka qaaday taliyihii saldhigga degmada Wadajir Cabdibaasin Maxamuud Cagay oo in muddo ah taliye ka ahaa degmadaas wareegta ka soo baxday xafiiska taliye Xijaar ayaa sidoo kale xilkaasi loogu magacaabay Saciid Cali Maxamuud oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed tilaabadan ayaa saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliyeed ku sheegeen inay tahay mid lagu dardargelinayo sugidda amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho oo mararka qaar ka dhacaan falal amni darro khasaare kala duwan ayaa laga soo sheegayaa dabeylihii ku dhuftay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Maandeeq Xuseen Ibraahim oo booqatay qaar ka mid ah xaafadahaas lana kulantay qaar ka mid ah dadkii ay saameynta ku yeelatay dabeyshaasi warkan ayay ka diyaarisay qoysas fara badan oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa guriyihii ay ku noolaayeen waxaa dumiyay ciid fara badan oo ay soo rogtay dabaylihii maalmahani ka soconayay dalka Soomaaliya haddaba warbaahinta haysta oo maanta booqatay guryahaasi ayaa waxa ay la kulantay qaar ka mid ah qoysaskii ugu saameynta badnaa ee ay dabayshu waxyeelada gaarsiisay isla markaana ka codsaday maamulka Jubbaland inay gargaar bini'aadanimo u fidiyaan dabaysh weyneed oo dhufatay oo baxan deer waa iga dumi eri male afar neefo area meesha iiga maqan ceel male wax ilaahay abuurto ii dhaqan male dabaysh weyneed ay ugu dhufatay deerkii waa iga dumi musqul male jika male
eri 4 neef meesha iiga dhimatay haddana maxaa ka cabsanaaba tii abaad ay kor saaran dabeeshii abay kor saaran guriyii aan deganay iigu soo galaysaa guriyii iigu soo galaysaa maxaan rabaa hay'adaha gargaarka Jubbaland sidii ku dhaqsiyaha badan ay iigu imaadaan oo xaaladaan ay wax ka qabtaan inay xaaladan wax ka qabtaan ay ii imaadaan oo bal horta meeshii siday tahay ay arkaan meel la fadhinayo meel kala toona male xoolo eber deerkii waa kor saari ciidii abay kor saaranba waa bi soo galaysaaba jika male meel wax lagu korsanayo male guriyii qolalka la seexanaya arwa al baad waa soo galaysaa saddexda qolal jiifay bi soo galaysaaba meelan guuray meel kismaayna meel uga guuray guri kale iyo hooy kale ma qabin meeshan seexanay bi ugu soo galaysaa waxaan ka codsanaa Jubbaland hay'adaha gargaarka fidinaya inay sidii ku dhaqsiyaha badan ay soo gaaraan ee ii imaadaan يرى مهد علمي يوسف وحنا دقناهاي بولا أبليكو waliba boolada ka baxsan oo boolo malaaya deganahay waxa ka codsanayna Jubbaland inay wax noo qabato guriyii waa naga dumeen meesha hadda taaganahay waxa waa ciida guriyii naga dumisay waa rafaadsanahay waxa rabaa in wax noola qabto waa aad waa cadibanahay maxamed cabdulle ku dhashay magaalada Kismaayo deganay dadkii hore oo ka soo qaxay maxaan ahay meeshan ay gaalada ay degto ceeldhiig aan ka mid ahay marka hore kadib markii hore waxa way xoolo yar wax aan leen dadka maxaa ahay magaalada afkeeda degan oo xoolaha waxa way xoolaha ku haysta meeshaas ceeldhiig xoolaha ku haysta meeshaas ceeldhiig aan ahayn kadib markii dambe waa soo qaxnay intaan imaanay markii waxa way meesha gaalada soo kor degtay waa soo guurnay intaan imaanay meesha nusboos waxaan ka ahay aan ka gato qaraabi iyo xoolo yar xoolo aan haystay aan ku gadan xoolii in yar oo iga dambeysay ari ahay iyo inta masiibadana hadda maalin dhaweed waxa way dabeeshii dhicaysa igu dhacdo marka maxaan codsanayaa waxa way maamulka Jubbaland hay'adaha gargaarka waxaan ka codsanayaa inay wixii karaankooda igala soo gaaraan maandeeq xuseen ibraahim warbaahinta haysta magaalada Kismaayo dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay weerar dhanka cirka ah war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika loona yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka si gaar ah duqeymahaas ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhig ay ururka Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in weerarkaas ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe Miguel Castellanos oo ah ku-xigeenka agaasimaha howlgalka taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa hoosta ka xariiqay in ay sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale oo ay ka fulinayaan goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku taageerayaan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab sidoo kale waxaa qoraalka Africom lagu sheegay in duqeyntaas qiimeyn ay sameeyeen aan wax khasaare ah lagu gaarsiinin dad shacab ah balse lagu burburiyay saldhig ay lahaayeen ururka Al-Shabaab geesta kale ma jira wax war ah oo ka soo baxay dhanka ururka Al-Shabaab ee ku aadan duqeymahan uu Mareykanka sheegay in uu ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab inkastoo ay xusid mudan tahay qoraalada ka soo baxa taliska Africom aan la soo raacinin sawirro muujinaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha jira marka laga soo tago soo gudbinta xogta la xiriira howlgalkii ay fuliyeen taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa sanadkan 2020 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah uu la beegsanayo xarumaha iyo saldhigyada ay ururka Al-Shabaab iyo kooxda Daesh ay ku leeyihiin deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gudaha dalka ugu dambeynna booliska dalka Jarmalka ayaa xabsiga u taxaabay koox qorsheynayay in ay weerar fuliyaan booliska Jarmalka ayaa lagu soo waramayaa in ay xireen koox la sheegay in ay qorsheynayeen in ay weeraraan masjid ku yaala dalkaasi kadib markii ay boolisku heleen xog ku aadan falkaasi ay ku kaci rabeen kooxdaasi mintidiinta la xiray oo ka kooban 12 qof ayaa la sheegay in ay ka tirsan yihiin koox lagu magacaabo Dirhaarte Karen oo ka soo horjeeda islaamka iyo dadka magangalya doonka ah ee jooga dalkaasi sidoo kale booliska waxa ay baadigoob ugu jiraan xubno kale
oo ka tirsan xagjiriinta kuwaas oo qayb ka ahaa qorshaha weerarka masjidka iyo sidoo kale dadka magangalyadoonka ahi lagula dagaalamayay. dalka Jarmalka ayaa waxaa ku sugan kooxaha cunsuriyiinta midigta fog weerar ka dhan ah dadka muslimiinta ah oo ay ku jiraan dadka magangalyadoonka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi. guud ahaan warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyo Star Studio Muqdisho waa naga intaa cid u sage waxay dib uga heli karaan ama uga barbaaran karaan webpage-ka internetka aan ku leenahay starfm.com maqal qoraal sawir aan ka marneen sidoo kale waxaad naga heli kartaan bogga Facebook starfm/facebook.com. Cabduqaadir ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya Maxamed farsamada ayuu ku jiray ka horse nabad iyo warsan. jiritaanka nolosha ee noolo walba waxaa muhiim u ah helidda nabad sal adag leh oo uu ku noolaado. marka se loo yimaado aadmiga oo ah kan ugu wanaagsan ee sankuneeflaha uunka waa kan ugu sii mudan inuu helo nabad waarta. waa tan afmaalkii hore ee Soomaalidu ay horay u yiraahdeen nabaddu waa hoyga baraaraha iyo gunta barwaaqada. mid kalaasa ka daba timid oo tiri nabaddu waxay muhiim u tahay dhowristeeda adiga, aniga, iyada iyo guud ahaanba bulshada. noqo qofka ugu horeeya ee ka shaqeeya ilaalinta nabadda, ahawna danjire nabadeed. bulsho wada noolaata baraadli'i oo aan arag dhib iyo caqabad labadaba waxay hoy u tahay ilaalinta kaalinta ay siiyeen in qof walba uu muhiimad u arko dhanka nabadda. nabadi waa noloshaada, waa tan ubadkaada iyo guud ahaanba tan bulshada. ku noolow nabad, kula noolee walaalka. قبيل ويدا ورجلي رجدا قبيل ويتولي رجدا قبيل قرما Soomaaliya waxaa dastuur u ah in uu madax ka noqdo nin ka dhashay qabiil weyn oo caalamku aqoonsan yahay. miyaan la ogeyn in dunidu ay ka gudubtay qabiil